وهدى دار سياحة غابة ذنبي يقوى مركاي قبيل المهودة جيدان يستقى حدا قبا وقول ذنبي عبركا قدومي daawadayaal meelaad joogtaanba oo walaalkiin Muxsin galabta waxaan nimnay duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa khaasatan mid ka mid ah xiriyaha geela ee magaalada Hargeysa duleedkeeda lagu dhaqdo geela idin muuqday ayaa nin ganacsadi bartan ku dhaqdaa dadkuna halkan bay u yimaadaan si caanaha marka ay ugu soo doontaan waad arki doontaan geela maxarada gudaha inuu geli doono iyadoo geel la lisi doono iyo geeli marka badankiisu gudaha ku jira intii kalena kambalkan bay markaa daaqasaayo halkan oo dhulku aad cagaar u yahay bay geel iska daaqaya walow lagu jiro xilli xagaaya oo roobkii sanadkan aad u yaraa haddana dhulkan waxaad moodaa inay cagaar yar noqotay aynu wada soconno xeradayna gudaha u geli doonaa way daawadayaal sidii aan horeba idiin soo sheegnay xeradii geela ayaan gudaha u soo galnay idinka arkaya geela badankiisa halkan buu ku xariisan yahay weli gabalkii muu dhicin oo goordhow markuu gabalku dhaco ayaa geel la lisi doonaa oo bacda maqrib baa la lisaa geela inta badan markaa geeli kalena waa taa la soo wado oo ninka la soo geli kalena waa kuwa soo galay marka geel aad u fara badan ba halkan ninkani ku dhaqdaa geela weyn wada garanaayo waxa ay Soomaalidu inta badan dhaqan iyo caado u leeyihiin dhaqashada geela meel ay joogaan ba dadka Soomaalidu ragga laxaas si dhowray oo dhaqasho waa geel waa kii abwaankii Cumar Istiriiri lahaa daaqaba ugu nolol dambeeya oo geel waxa la sheegay in bilii wax ka badan ba oo oomanaan kara marka bilii wax ka badan oo oomanaan karo waxa la yiraahdaa waa safiinatu sahraa ba luqadda carabida la yiraahdaa ama markabka lama deegaanka marka geel uu adkaysi badan buu leeyahay haday araad iyo noqoto iyo raf fara badan ba oo xoolaha kale marka geel uu ka duwan yahay sidaas baa loo leeyahay marka ragga laxaas si dhowray oo dhaqasho waa geel marka Soomaalidu meel ay joogaan marka geela dhaqan bay u lahaayeen sidoo kale geela waxyaabihii Soomaalidu adeegsan waxa kamid ah in marka magtoo kale marka geela lagu bixin jiray hablahoo kale marka geela laga bixin jiray marka geel wuxuu astaan Soomaalidu meel ay joogaan marka xilligii hore iyo imkaba ay leeyihiin marka geelu de meel aad joogtaan boo khayr baan idin rajeenayaa channel-kan waxaad leeyahay subscribe ta waxa weeye yaa laga iloobin khayr baan idin rajeenayaa